koox Tuugo ayaa u dhacday Baan ku yaala dalka Kenya kaas oo ay kala baxeen adduun lacageed oo gaadhaya 50 milyan oo shilinka dalka Kenya. Tuugadan ayaa si ay u dhacaan bankaasi oo lagu magacaabo Kenya Commercial Bank oo ku yaala magaalada Dhulka oo ah magaalo ay ku badan yihiin warshaduhu. Waxa ay soo qodeen dhulka hoostiisa iyagoo markii laga rawaxay soo galay. kooxdan Tuugada ayaa ciidamada booliisku waxay xaqiijiyeen in ay la yimaadeen xeelada sidaasina ay ku qaateen adduun lacageed oo gaadhaya 50 milyan oo shilinka dalka Kenya una dhiganta 482,000 oo dollar. maareeyaha bankaasi ayaa u sheegay ciidamada booliiska in Tuugadani ay soo qodeen dhulka hoostiisa isla markaana ay wateen qalab casri ah oo sahlaya in ay gaadhaan dantooda. warbaahinta dalka Kenya ayaa si weyn arrintaasi uga faalooday waxaana sidoo kale shacabku isku weydaarsadeen arrimaha la xiriira Tuugadan iyo godka weyn ee ay qodeen baraha ay bulshadu ku kulanto.